ururka ay ku bohoobeen jaalayaasha Somaliland ayaa ka hadlay sixir bararka baasan ee ka jira dalka sidoo kalena waxa ay iska difaaceen eedalo soo jeediyay oo sheegaya inay ku lug leeyihiin sixir bararka baasan ee ka jira dalka ururkani ay ku bohoobeen jaalayaasha oo maanta jirjireed ku qabtay hotel Samartime ee magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin mar walba wax kasta oo hoos lagu dhigayo sixir bararka baasan ee ka jira dalka. Bismillahir Rahmaanir halka horta waa salaamantiin qolada saxaafadda shirkan jaraa'id waxa qabanaya shirkadaha jaadka ee Soomaaliland waxa ka hadlaya Xasan Faarax weerar oo leeyahay Xasan Faruur afayeenka jaadka Soomaaliland weeyaan shirkaduhu way dhan yihiin waxaanu doonaynaa inaanu ka hadalno sixir bararka dhacay iyo eedayn jaadka loo soo jeediyay marka hore jaadku waa shayga quree lagu iibiyo lacagta Soomaaliland ee gacanta ku haya ee hirgeliya asagu waa kuwa baqaaradeysa ay ka buuxaan annagaana cadaynayna wasaaradda maaliyadda ha u soo dirata shirkadaha ugu waaweyn kolkaanu ka soo qaadayna afdiin lagu hayaa 86 bilyan oo Soomaaliland soofa wuxuu hayaa 350 bilyan faras wuxuu hayaa 22 bilyan aamina gaafana waxay haysaa 13 bilyan waa shirkadaha waaweyn haddii la helo cid ganacsiga ee leh jaadka sixir barar riday cid ganacsato caawa milyuun Soomaaliland ay u hoota baqaarkiisa amba meheradiisa ay to dawladda soo cadaysay amba dadku anagu waanu cadaynaa lacagta inaanu hayno amarkii madaxweynaha iyo sidoo fuliyayna waanu fulinaynaa intuu ku dhawaaqo lagu sarifo mooyee ma sarifayno xoolihii baa istaagay waanu ognahay halkay marayaan dhaqdhaqaaqa u socdaa jaadka waa kastamka kala baydhka iyo dhaqaalihiisa wadanka ayaa lagu ilaaliyaa waxaanu idiin sheegaynaa cidda uga dan leh ee la jaadka sixir bararka lacagtii jaadka saasaanu u haynaa sixir bararka waxa riday waxa la yaala waxa dalka lagu iibiyo dollar baa lagu doonayaa haday sigaar tahay haday biyo tahay haday raashin tahay haday wax lagu dhisay tahay oo badi weel annaga aqoonsan lacagta Soomaaliland oo kaliya tii aqoonsanayd ee lacagta qaadanaysa si ay lacagtu u dhimato ee nu haynay hadii la yiraahdo ayaga wax sixir bararka ridaya waa dambi weey wax aliyaala wixii wax lagu hagaajinaya anagu diyaar baanu nahay jaad walayaasha waan la shaqeynaynaa wasaaradda maaliyaddana waa la kulmaynaa waxa weey sidaasaanu lacagta ku haynaa sidaasaanu amarkii madaxweynaha ku qaadanay shirkadahana amba baac mushtarigana waxaanu leenahay hal la qaatay amarkii madaxweynaha oo sidoo yiri hal la fuliyo annagu imakaanu Soomaaliland ta qaadanayna oo baqaaradeeda dhiganayna oo inoo ooleysa annaga tusayna bangiga Soomaaliland iyo wasaaradda maaliyadda iyo ganacsiga baqaarada ay ku xidhan tahay berita haday u baahato bangigu wuu ogi uu ka warhayaa lacagtaanu hayno haddaanu suuqa gelina 2 milyan bay tagaysaa lacagtu baqaar meel baac mushtari oo Soomaaliland wax ku iibisa qaadkun baa jira ma jiro maba aqoonsana qaar baaban garanay lacagta Soomaaliland waxay tahay marka inta ay wadaada soo kiciyaan inay yiraahdaan waa sidan ma aha maskax ku dara waa in sii daayaan waa in la sii daayo bangiga Soomaaliland dhexe oo ansixiyaa sharciyada banka si ay lacagta adag ugu soo dhacdo asaga oo wax ku maamulo ilaa xoolahaynu dirayna way istaageen waan ognay kama indhalin waqtiga jira waan ognahay waxaan ku wareejinayaa Xaaji Cumar waxaanu kaga jawaabanaa bangiyada Itoobiya lacagtii dollarka ay la dhexsiiyay birtiino ugu jirtay bangiyada dhexe Itoobiya ayadoo dollar LC kolkaanu ku noli sarif waanu weynay ayaa LC la naga siiyay lacagtii dollarka ahayd shirkadaha mid walba intuu baahanay waana cabashada Itoobiya oo nugu gudbinay waana naga aqbashay waa wadan la aqoonsay waa wadan lacag haysta qaar baa 20 milyan oo dollar ay siiyeen qaar bay 15 siiyeen qaar bay 10 siiyeen qaar bay 5 siiyeen wax aliyaala wax Soomaaliland dollar aan uga baahanay ma jirta anagu sababtoo lacagta taala waa lacagtii qaadka imika macnaha lacagta waxaan uga kaaftoonay Itoobiya LCG naga siisay lacagta bangiga gudaheeda oon doonaynin in dadkeeda ganacsatadii haday dollarkii waanina wax yeesho oo naga xaraashtay markaas asaana Soomaaliland ba uga doonayna anagu dollar waanu ku sugaynaa halka waligeeyana waanu qaadanaynaa waanu xariisanaynaa waqtiga alla keenay sixirkii madaxweynuhu ku dhawaaqay aanu helana waanu sarifayna wax kasto la nayraana waanu yeelna haday yiraahdaan maanta joojiya waanu joojinaynaa qaadka 7 cisho gudahood dawladdu xitaa wax kala daayo wax yeelo wadankayaga u yahay sidaasaanu dalkayaga iyo dawladdeedaba ku ilaalinaynaa baan ku dhir waxa la yiraahdaa sidii waxa u hadlay Xasan Faarax weerar anigu in yar baan ka dambaysiinayaa
marka uu horeysan lacag xad dhaafa oo magaaladaba culays ku ah baa lagu soo daayay magaalada oo aanay qaadi karin oo gidaar walba malaayin wada shan kule lala tuban yahay oo cusub annagu waxaanu lacagta u xakabaynay haddaanu qaadwalihiinahay dadka iyaga masaakiinta abaanu uga tudnay inuu doolarkii ku sii sixir bararo oo milyan iyo 200 gaaladii haddaanu ku sii dayno 2 milyan buu gaari karaa waanu uga tudnay maatidayada ina aanu sixir barar ku samayno oo sii dayno lacag Soomaalidaanu hayno dawladuna ciday doontaa soo diratay leeyahay ayay ku arki doontaa waxaanu leenahay cabashooyinka aan waxyaalaha cabashooyinkaana cidaanu wada shaqeyno oo wasaaradda maaliyadda ayaanu ka kulmi doonaayo wixii aanu isku afgaranaabaan ku socon doonaa wixii dawladdu soo saartana waanu sida uu yahay baanu u qaadanaynaa khilaaf bayno sidaasaanu anagu ku hambalyeynaa dawladda iyo madaxweynuhu amarkii uu jeediyay hore loo soo saarayba hala qaato sidaa uu sheegay afayeenka jaadku magacaygu Cabdi Ismaan Ali sidaa uu sheegay afayeenku iyo suldaanku ay iska daba yidhaaheen haddaanu nahay haweenta qaadolay annagu waxaanu kaydsanay oo aanu haysanaa kaashkii Soomaaliland waxa qudhan wax ku iibinaana waa Soomaaliland xabadana aan lacaab magaalada Hargeysa lagu iibinayo waxa lagu oranayaa dollar baa lagu iibinayaa ama bacadlaha ama baqaarato laakiin annagu waxaanu nahay dadka qudha ee lacagta Soomaaliland ee kaashka wax ku iibiya si aanu sixir barar ku sii jirin aanu dadkayga aanu dhibin waxaanu falowgeed qabanay inaanu xareysano kaashkayaga oo aanu meel dhigano oo aanu joojino sarifkii aanu dollar ku sarifanaynay ganacsatada ku sarifanaysa dollarka ee saacad kasta China wuxuu diraysa haddana eedeynaysa qaadka ee la qaadulaha ayaa waxaan sameeyay oo lacagta dollarka qaata waxaan dawladda iyo dadkaba u sheegaynaa inaanu ku haysano bakhaaradadeeda iyo maqsinadadeeda oo kaashki noo yaalo aanu suganayna amarkii dawladda in la fuliyo oo ay lacagtu halkii ay reedkii ay dawladdu u jartay ay gaadho ilaa ay halka gaadhana ma sarifayno oo ma iibinayno sidaa waxaan ugu kalifayay inaanu ka ilaalino dadkayga sixir bararka marka waxaanu leenahay ganacsatada kale ee annaga nagu eedeynaysa inaanu anagu dollarka qaadano annagu haddaanu qaadulinahay dollarka ma qaadano kaashkii dawladda waxaanu cadeynaynaa in bakhaaradeeda noo yaalo oo aanu lacagteeda halkayga ku haysano waxa qudheen noo soo xaroodana waa Soomaaliland annagu dollar waxba kuma doono dollarna waxba kuma baayacno bijin baanu iibinaa bijinta Soomaaliland baanu ku iibinaa rubuc qaadkana Soomaaliland baanu ku iibinaa wax dollar waxba kuma iibino marka waxaanu leenahay dadka ka ganacsanaya dollarka ee ku dhibaya dadka masaakiinta annagu waanu haysanaa haddii aanu soo dayno kaashkaanu annagu hayno ee bakhaarada noo yaala iyo guriyahayagana sixirku wuxuu tagi doonaa 1,500,000 buu tagi doonaa marka waxaan leenahay hal loo hogaansama amarkii dawladda oo todobadii ay tiri ayaan la sugaynaa waanu aqoonsanahay waxay dawladdu fuliso ay soo jeediso si dhabana waanu uga qayb qaadanaynaa in sixir bararka hoos loo rido wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh